warsangeli oo ugu dambeyn soo bandhigay beelahaaneed beelaha ay ka kooban yihiin iyo sida ay hubka u qaybsadeen oo guud ahaan isku noqonaya 3,000 oo nin iyo 150 gaadiid ah sida warqadani kaaga cad bahama jeerteen 15 gaadiid ah iyo 300 ciidan ah bah Yusuf Harun 15 gaadiid iyo 300 ciidan ah aadan Saciid 15 gaadiid ah iyo 300 ciidan ah bah Nuux Umar 15 gaadiid ah iyo 300 ciidan ah gaashaanbuur 10 gaadiid ah 200 ciidan ah bah reer Saalax 10 gaadiid iyo 200 ciidan ah ugaariyahan Harun 10 gaadiid iyo 200 ciidan ah Maxamed 10 gaadiid iyo 200 ciidan ah bah wadaag bah Ogoyslaabe 10 gaadiid iyo 200 ciidan ah bah wadaa bihidoor 10 gaadiid ah iyo 200 oo ciidan ah warlabe 10 gaadiid ah iyo 200 ciidan ah Ogoyslaabe 5 gaadiid ah iyo 100 ciidan ah dir 5 gaadiid ah iyo 100 ciidan ah Xuseen Ciise 5 gaadiid ah iyo 100 ciidan ah Reer Faatax 5 gaadiid ah iyo 100 ciidan ah sidoo kale dhanka kale isla maanta Boosaaso waxa ku kulmay Siciidanay iyo Suldaanka isagu warsangeli iyo guddiga difaaca ay u magacaabeen isla beelahaasi warsangeli ka koobani maalinkii ay shirka ay qabsadeen halkaasina Siciidanay wuxuu ugu sheegay in wixii ay uga baahan yihiin saanad iyo ciidan iyo wax kasto kalaba in uu diyaar u leeyahay ka budaan ka dawlad ahaaneed waayahay haddaba halkan waxa kaaga cad odayaashii nabadda ku baaqayay maalinkii ay rag wax iska celinayeen ilaa maantana aan xaalad kale ku baaqin in ay hoosaasin toos ah ay wadeen ugu dambeynna uu fahmay suldaanka Habaryoonis dhanka kale awdal shacabka ku dhaqan oo taageeray xildhibaan Maxamed Abiib hadalkii dhawaan ka soo yeelay ee ahaa in beelaha Samaroon iyo Ciise ay samaysanayaan jabhado heer walba samaysta ciidan beeleed waa saxtay waana ku taageersanahay xildhibaan kalmadeedu wiiltii inaan samaysano ciidan beeleed difaaca awdal iyo shalal iyo gabilay oo ka kooban intuu xildhibaanku sheegay beelaha gadabuursiye beelaha Ciise iyo beelaha Gabooye ka kooban ee gobolka awdal dega inaan jabhad samaysano difaacada sharafkayga iyo cirdigayga iyo xoolahayga iyo maatidayada waanu taageersanahay xildhibaankuna xabada uu asiibay waanu ku taageersanahay waa qodob waa talabaad reer Burcayl ka shaqeynayaan in ka rawaaleyn waa xildhibaan Maxamed Abi Yuusuf Jaamac wallaahi billaahi tallaahi ma xildhibaan waanle waa ninka awdal loogu fayay Maxamed Abi Yuusuf Jaamac waa xildhibaan ku taagan xasaanada gobolka awdal qof la hadli kara inama jiro car waalid karnay ka wadaga tawaaqadka talabaad ariidooro dhageysta annagana weynaadeer Soomaaliland hada kala dirteen noo sheego waxa daran waa kala dirnay ciidan madaniya oo dadkiisa iyo deegaankiisa difaacanaya waana dad lagu soo duulay baan u aqaan laakiinse beesha Sumeera wala ka dhashay Sabroon iyo Ciisaba aanu ma garanayo sababta ay qoti xaadir kari ciidamo madaniya ay u samaysanayaan sababtoo ah ma jirto maanta deegaanadeenaasi haddaan nahay Habarawal iyo haddii ay yihiin Ciise iyo haddii Sabroon cid duulimaad ku soo ahi laakiinse boqolkiiba waxa jeclaan lahaa inaad hadaladani aad ka fiirsataan dad fara badan oo waxaan arkaa ku celceliya garxajis wuxuu samaystay waxa ugu magac daray GT6 isagoo aan weerar lagu ahayn isla deegaan u degan yahay waqtigaasi ciidankii buurta fuulay ee garxajis ka koobnaa xaalad doorasho iyo wax noocaas ah kuwa ka godooday oo keentay ay ahayd xaalad jirta darteed ayaanay u fuuleen hadday khaldanaayeen iyo hadday saxsanaayeenba laakiinse maanta Habarawalay inaga runtii isku sheegnaa qurux badan leh walaalayaal xaalad jirta oo maanta dadkeena iyo deegaankeena ku socota oo maanta weer lagu yahay ma jirto taa bedelkeeda ma ahan markaa waqti xaadirkan ciidan madani ah oo la sameeyo difaaca maalay Habarawal leedahay iyo cid iyo sharaf ay Habarawal leedahay iyadoo aysan jirin sababtoo ma jiraan ba weerarku laakiin hadday timaado waa boqol number 1 ana waaxid ka taageeri doona in la sameeyo laakiin soo waqtigani ma jiraan ba si Samaroonna waxa leeyahay war ragga Turkiga khaldamay maanta ciidamada madaniga ah war samaysanayna noocaada soo dhaqmeeyay oo qarad cisaan bay hayday in adigu aad ka daba garaacdaan ma isarahayno halka ay qabsadaan ba aska qabsataan hukuumadii waxay horta kala farsameyn lahayd ba
dhowr iyo 20 cishay joogtaa dhowr iyo 20 cishay joogtana waxay ka dhex dhamaan laadahay wasiiro iyo way isku dhex yaacsan tahay wax alla wax u diyaarsanaa oo waqtigaasi haddii ay qabsato markay doorashadu ay dhacaysay xukuumaddu inay sidii uga shaqo gali lahayd mabahe u qornayn baan u malaynayaa sababtoo ah wasaarado fara badan iyo meelo fara badan oo xukuumaddii hore shaqaalaheedii iyo dadkii keentay ay joogi jireen oo laga eriyay oo dawladdii albaabadiiba loo laabay ilaa xataa al'aan aan shaqaynaynin ayaa maanta jira taasina waxaa odhan karaa waa wax maanta ka timid xukuumadda cusub oo iyagu aan u diyaarsanayn markay xilka ay la wareegaan sidii ay si degdeg ah ay wax u maareyn lahaayeen qorshaba kamay lahayn bay waxa qorshoodu ahaa kaliya tahay ay kursiga ay la wareegaan laakiin qorshe kaleba uma diyaarsanayn iyo systemkii ay dawladnimada iyo xukuumadda cusub ay maaragtay ay ku maamuli lahaayeen oo waqtiba ay tani ku qaadanaysaa inta iyadu isku dhex maraysan Soomaaliya xukuumadda sababtoo ama bay u diyaarsanayn bayna waddanka ay maamusho oo systemkii iyo wixii ay ku maamulisay qorshe noocaasaba maanta kamaysan la shalay toole kamay lahayn markay xukuumaddu ay qabsanayso waxaan u malaynayaa mabay aaminsanaynba inay ay xukuumadda ay la wareegi doonaan oo wax badan ayaa iskaga dhex qasan oo maanta iyadiibaaba isriyeynayso isnuugaysa marka bulshada Soomaaliland waxay odhan lahaa maadaama xukuumaddiina ay noocada noqoto maanta iyadii ay isku foorarto kuwii odayaasha dhaqanka ahaana ay nabad hoosaasina wadaan halka maanta hub lagu soo diyaarsanayo laguna balamay in 15 bisha soo socotay February shirka la qabsado toos lagu baaqo islahe dagaal oo inta ka horeysana la soo hub urursado sida warqadaadii ka cad tira ahaan 3,000 oo reeraha ay ku tilmaameen 300 qof iyo 15 gaadiid ah ayaa loo qaybiyay kuwa kale biidana 10 kuwa kale iyaguna siida oo darajo ay reerku malaha uu ka badan yahay uu ka dhaqaale badan yahay ayaabay ay u kala qaybiyeen adigu sidaan u fahmay oo intaasoo gaadiid marka la isku soo koobay isku noqonayo 150 gaadiid ah iyo 3,000 oo ciidan ah ayaa furimaha iska soo xaadirin doona 3,000 ciidan ah iyo wixii hore u joogay iyo 150 gaadiid iyo wixii hore u joogay ee gaadiid ahaaba iyaga oo isku dhafan oo isku dhinaca qoriga u ridaya oo aysan ka maqnayn maamul goboleedka Puntland iyo Soomaaliya iyo cid kasto maanta rabtay inay Somaliland aan la aqoonsan oo ay adhaxda ka jabisaana ay dabada ay ku hayaan misana ay soo dirayaan ayaa ku soo foodle isla ceeragaabo waxaa odhan lahaa 100% ka sugina odayaashaasi in ay dhiigiina idin badbaadiyaan iyo maatidiina iyo sharaftiina iyo calankiinaba inay idin badbaadiyaan marnaba ha ka sugina kuwaasi odayaashaasi xaggii dadka ay abaabuli lahaayeen sida kuwii la midka ahaaba ay dadkooda u soo abaabulayaan ayay noocadaasi noqdeen marka waa kuwa habaar naga dhacay ilmaadeen ay hatirsinaba oran la raashaq saxaaqow oday damba oo noocadaasa isagoo arkaya kii la midka ahaa inuu reerkiisa u soo abaabulayo inaga kayna aan ku daba faylnaa waa inuu noqdaa ninka nabadna waxay naga taraa colaadna waxay naga taraa mar walba dhinacaynu doonayno bahashay noola rida kaasa oday dhaqameed inoo noqonaya laakiinse nin jireec inagu cagaha inoo qabanaya kulba kuwaynu isayno marnaba iyaanu idin noqon hogaamiye ambaba se mid aad ku daba fayshaan